kooxdan ayaa la baxday urur diineed lagu magacaabo asaadicuun bilxaq kaasi oo uu taliyuhu sheegay inay khatar ku yihiin amniga iyo nabadgelyada dalka guud ahaanba isla markaasina ay ciidamada boolisku talaabo sharciga waafaqsan ka qaadeen taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sarreeye Guuta Cabdilaahi Fadalimaan ayaa faahfaahin ka bixiyay kooxdaasi iyo waxyaabaha ay ku tacalluqaan sida ka warqabtaan ciidanka booliisku wuxuu u yimid ama qaranka Soomaaliland ama bulshada reer Soomaaliland ilaalinta nabadgelyada isagoo mar walba Ilaahay tala saaranaya ilaalinta nabadgelyada qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland sidaad la socoteen waxa dhawaan koox wadaadday caasimadda Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa asaadicuun bilxaq kaas oo qayro sharci ahayd khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland inta kadib ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 12 kii ilaa baaro 12 kii subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jiraan howlgal ballaaran ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka ka mid ah isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxa looga xalaaleeyay maxkamadda awoodda u leeyahay xiraaninta iyadoo ay cuskanayaan ciidanka booliisku waxa laga yaabaa in dadku yiraahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska ee shalay qaar baan qabanay duhurkii maxay kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayay xoolo markuu kiisku yahay kiis culus sidoo uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant haddii ciidan nabadgelyada khatarta ama dembigaas adka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo without warrant bay ku gali karaan immediately way maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa sidaas intaan saakayso ku yeeri muhiimadda ugu weyn waxa weeye waa inta waxa kale oo halka mar labaad aan oo fursad ka faa'iideysan ka celinaya dhammaan ciidan weynaha booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland si aad la socotaan waxay bariyahanba howlgal ballaaran kaga jiray ciidanka nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland iyo laamaha gobolada iyo dhammaan qaybaha iyo fadhiyada kale ciidanka booliisku laba shay ay culayska saareen ururinta dakhliga cashuuraha oo liisan la'aanta iyo waxyaalo la xiriira xawaaraha dheer gaadiid kale iyaguna had iyo jeer shirarka keeni jiray sabab jiray waxa yana la mid ah bacda beersasha oo nabadgelyada khatar ku ah sida laga warqabo oo gaariga qofka falfuliya ama uu raaci karo ama uu wax kasta ku fulin karo taas waxaan mar labaad u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland amaan ayaan soo jeedinayaa sida wanaagsan ee ay ciidanka booliiska ugu hoggaansameen oo amirta waxaan leeyahay oo mar labaad ku celinaya waa la qoraa gaadiidka marka bacda laga goynayo cidda mar labaad lagu qabto iyadoo ku soo celisay waxa weeye oo la ganaaxaya marka labaadna waxa lagu qaadaya gaf ciqaabeed intaas ayaan mar kale xasuusinayaa bulshada reer Soomaaliland kooxdan la baxday magaca asaadicuun bilxaq ayaa sida raayul caamka iyo dadka aqoonta u leh arrimaha diintu ay saadaasha ka bixinayaan lagu tilmaamayaa koox khatar ku ah amniga iyo guud ahaanba diinta islaamka iyo habdhaqanka suuban isla markaasina ah koox aad u xag jir ah oo u baahan in sharciga la waafajiyo